الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي الأعزاء، waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc yar laakiin macaanihiisa ama gudihiisa markii loo dhadhaco aada u mug weyn. waa mowduucaas waa dowrka dhalinyarada ay ku leeyihiin mujtamaca ama populationka markaas ay ku dhex nool yihiin. ummad kasta ama mujtamac kasto waxaa u dubdhaxaad u ah ama lafdhabar u ah dhalinyarada. dhalinyaradaas haddii tarbiyadooda la wanaajiyo, akhlaaqdooda la wanaajiyo, aqoontoodana la dhiso, wacyigoodana kor loo qaado, waxaa xaqiiqo ah ummadaas ama mujtamacaas in uu gaarayo horumar iyo himilo aada wanaagsan. cabdullaahi bn cabaas wuxuu leeyahay radia allahu canhuma ma ata allahu caza wajala cabda cilma ila shaaban wاlkhayru kulluhu fi shabaab. uma talaa qowluhu tacaala qaluu samicnaa fatan yudkuruhum yuqaalu ibrahim waqowluhu tacaala inahum fidyat aamanuu birabbihim wazidnaahum hudaa. uma qowluhu tacaala waaataynaahu lxukma sabiya. qur-aanka markaan ugu laabano waxaad arkaysaa adilo fara badan oo kusoo aroortay dowrka dhalinyarada ay ku leeyihin mujtamaca. mujtamac kasto kama maarma dhalinyarada. haddaan u laabano ambiyadii calayhi salaatu wasalaam sida nabiyullaahi yuusuf, nabiyullaahi ibraahim, nabiyullaahi muusa calayhi salaam, dhammaan waxay ahayn dhalinyaro. risaalada ilaahi subxaana watacaala wuxuu u dhiibay iyagoo dhalinyaro ah. waxayna wajaheen mashaakil fara badan, waxay wajaheen caqabadooyin aada u weyn. laakiin maadaama tarbiyadooda ay dhisnayd, aqoontooda ilaahi subxaana watacaala uu dhisay, waxay wajaheen mashaakil fara badan. u dambeysna way guuleysteen, mujtamacoodina horumar ayay gaarsiiyeen adduun iyo aakhira labadaba. waxaa la yidhahdaa marxalada shabaabka waa quwa laa xikmata fiiha, waa quwa laa caqla fiiha. marxalada shuyuukhnimadan waxaa la yidhahdaa waa quwa xikma laa quwata fiiha. ninka muslimka ah ee shaabka ah waxaa saaran waajibaad si mujtamaciisa wax uga bedelo, si mujtamaciisa wax ugu qabto muuqdo. waxaa kow ka ah aliltizaamu biddiin fi kulli nawaaxi alxayaa. waa inuu noqdo nin dhalinyaro ah oo diinta islaamka ku dhagan, oo diinta islaamka laasimaya, awaamirteeda dhankasta noloshiisa uu qaadanaya diinta islaamka. waxaa kaloo kamid a inuu sameeyo asacyu islaaxu alkhayr walislaax almujtamac. waa inuu wanaajiyo ama mataqaantaa uu sameeyo dhaqdhaqaaq dadka kale iyo mujtamaca markaa ku dhex nool yahay inuu yahay mid hagaajinhayo. waxaa kaloo laga rabaa adaa lcibaadaat fii waqtiha. inuu yahay nin shaab ah oo gudanahayo waajibaadka ilaahi subxaana watacaala saare waqtigeedana ku gudanahayo. waa muhiim jiddan. waxaa kaloo laga maarmaan ah inuu sameeyo ninka dhalinyarada ah aliqtidaa birasuul sala allahu calayh wasalam min naaxiyati alafcaal walaqwaal. waa inuu ku daydo rasuulka sala allahu calayh wasalam xagga hadalka, xagga ficilada, wax kasta wuxuu sameynaya ama uu ka hadlay rasuulka sala allahu calayh wasalam una oga dayda. waxaa kaloo looga baahan yahay ninka dhalinyarada inuu suureysto ama uu fakiro ilaahay subxaana watacaala hadafka uu keenay iyo mataqaantay xigmadda laga lahaa oo ah in mujtamaca isaga uu ku dhex nool yahay muslimiinta inuu wax kusoo ziyaadiyo. rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaa weeyaan intaan nabinimada ka hor lasoo bixinin mujtamaciisa wax ayuu kusoo ziyaadiyay isagoo dhalinyaro ah oo mataqaanta ay iskaga makhrati kaceen carabtii inuu ahaa nin aada u firfircoon, dhalinyariisa wax weyn ka qaatay. marka almihim waxaan kusoo koobaynaa dhalinyaronimada waa marxalo aada u wanaagsan. dhalinyaradana maanta ama khaasatan dhalinyarada soomaali ama dhalinyarada muslimiinta bisifa caama waxaa weeyaan markaad fiirisid waxa maanta meelaha ku dhimanhayo, meelaha ku silicsan ama hadafkooda mataqaanta la bedeli karo ama maskaxdooda wax khaldan lagu shubi karo waa dhalinyarada. marka waxaa looga baahan yahay ninka dhalinyarada ah inuu diinta ilaahi subxaana watacaala barto si mujtamaciisa wax ugu qabto. wahada wabillahi towfiiq. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.